السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada channelkeena aragtida maanta muuqaalkeena maanta waxaan ku sharixi doonaa filim aad u xiiso badan kaas oo laga metelay mashiin awooda inuu saadaaliyo waxa sababi doona in aad dhimato filimkan oo ah mid khiyaali ah ayaa haddana xiiso gooni ah leh daawasho wacan mashiinkan ayaa magaciisu yahay machine of death kaas oo awooday inuu saadaaliyo waxa uu dhiman doonto ayaa laga metelay sheeko khiyaali ah taas oo ay qoreen koox saynisyahanno ah taas oo markii dambana film laga sameeyay qalabkan ayaa la soo saaray sanadku markuu ahaa 2013 mashiinkan ayaa u shaqeeya inuu qofka ka qaado dhibic dhiig ah kadibna wuxuu soo saarayaa warqad ay ku qoran tahay magaca shayga sababta u noqon doona dhimashadiisa filimku wuxuu ku bilaabanayaa gabadh dhalinyaro ah oo imaanaysa goobta mashiinku yaallo iyadoo rabta inay ogaato sababta ay u dhiman doonto kadib waxay gacanteeda gelinaysaa mashiinka isagoo ka qaadaya dhibic dhiig ah kadib waxay jawaab ahaan u helaysaa in qof weyn ama old age ah in ay sababsan doonto intaas kadib waxay u soo baxaysaa banaanka iyadoo faraxsan kadib waxaa dardaraya gaari uu wato oday waayeel ah sidaas ayayna ku dhimanaysaa qofka xiga ee tijaabinaya nasiibkiisa ayaa noqonaya nin ciyaara kubadda tenniska kadib mashiinku wuxuu soo saarayaa warqad ay ku qoran tahay inuu sababsan doono baarashuud soo ciladoobay intaas kadib isagoo murugaysan ayaa wuxuu soo aadayaa garoonka si uu ula ciyaaro asxaabtiisa kadib waxaa kor uga soo dhacaya baarashuud aad u weyn oo soo ciladoobay isagoo dhulka ku dhajanaya dhiiggiisina ku firdhinaya asxaabtiisii kuwaas oo hortaagnaa isaga intaas kadib waxaa isna markiisa imaanaya mashiinka wiil dhalinyaro ah oo isna doonaya inuu ogaado waxa uu dhiman doono kadib mashiinka ayaa u soo saaraya warqad cad oo ay ku qoran tahay inuu dhiman doono sababta gabadh gubanaysa intaas kadib wiilka oo cabsanaya ayaa wuxuu soo aadayaa xeebta kadib waxaa soo ag fadhiisanaysa gabadh doonaysa in ay la sheekaysato balse isagu wuu ku aamusayaa kana kacaya agteeda isla markiiba waxaa qabsanaysa gabadh holcaysa iyadoo ku dhigaysa sidaas ayuuna ku rawaxayaa oo uu ku dhimanayaa markan waxaa goobta iskeenaysa gabadh kale oo iyana doonaysa inay ogaato waxa sababi doona inay dhimato kadib waxay jawaab ahaan u helaysaa inay sababsan doonto time travel ama ay waqtiga ku safri doonto intaas kadib gabadhan ayaa la murmaysa gabadh kale kadibna waxaa madaxa looga dhufanayaa goor sheegto ama saacad iyadoo dhulka ku dhacaysa kadibna intay waqtiga ku safarto ayay tegaysaa goob uu dagaal ka socdo sidaas ayayna ku dhimanaysaa waxay sidaas ku sii socotaba markan waxaa imaanaya goobta mashiinku yaallo oday bidaar leh isagoo rajeynaya inuu ogaado waxa uu dhiman doono nasiib xumadiisa ayaa waxay jawaabtiisu noqonaysaa inuu cuni doono biir ama dub balse ma uusan fahmin jawaabta wuxuuna u maleeyay inuu u dhiman doono sababta biir ama khamri uu cabbi doono kadib wuxuu soo aadayaa safar dalxiis ah isagoo cabsanaya ayaa wuxuu tamartiisa isku ilaalinayaa faas marka uu ka soo laabto safarka ee uu yimaado xafiiskiisa ayaa waxaa gadaashiisa uga soo boodaya dub isku qarinaya caaga qashinka lagu rido isagoo sidaas ku cunaya daawade fadlan subscribe noo saar janaalka si aad ula socotid muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan kusoo gudbino like-ta iyo share-tana ha naga ilaawin mahadsanid